gabar dhalinyaro aad u qurux badan oo guurdoon ahayd ayaa waxaa dhacaysay nin u imaanayo markuu u yimaado cidoo la joogo uu la sheekaysanaya. gabadha aada loo ilaalin jiray, fadhi weyn ay lahaayeen, iskala sheekaysanaya. cidda waxay rajaynayaan ninka markuu la soo xiriiray hubiyaan inuu yahay nin wax bartay oo gabadha u qalmo, ay u ogolaanayaan inuu guriga yimaado. markuu yimaado ilaan gabadha jaamacadii kusoo arkeen, markaasuu la fariisanayaa ninkii. waxyaab badanaa dhacay. nin kasta markuu cabaar la sheekaysto uu istaagaya, waa degdegaya, wuu baxaya. wax yar le markuu la sheekaysto ma soo noqonayo. markii waalidka ila xiriiraana wuxuu leeyahay arrintii waa ka baxay. haddana nin kalea u yimid sidoo kale. ninkii labaatanaad markii la marayo waalidiinta murugaa soo gashay. ana xitaa waalid waxaan ahay gabdho dhalay, alxamdulilah. haddii gabadhaada oo kii soo doontaba ka noqonayo waxbaa ku gelayo, cuqdadaa ku gelayso. wuu yaabay marka kii ugu dambeeyey aa yimid oo labaatanaad qaraabo ahaa kan marka ay aada isku yaqaaneen. gabadhuu soo doontay. gabadhi markaasi markuu soo doontay wax yar loola joogay, isla markii uga cararay waa u yeeran waxay kaale ha bixin, inaan kula hadalnaa rabnaa, manoo soo noqonaysaa? maya u dhahay. maxaa dhacay? waxbaan arkay u dhahay. marka qofka markuu u imaanayo ama markuu meelaha ku arko waa gabar caadi ah oo quruxdeedii iyo ilaahay wuxuu siiyey, laakiin mar alle markii gabadha oo agteeda uu soo fariisto uu soo dhowaado, wax kale oo muuqaal kale yeelanaysaa, si kalena way u ekaanaysaa. qofkiin culeysaa laga saaraya, markaasuu qofka u cararaya. markaas kadib wuxuu dhaha ana idima sheegi karo, waxbaan arkay, mana soo noqonayo. aabbihii waa ilmeeyey, hooyadina meesha ku oysay. hooyo wax dhashay waa beer wax dhalay waayo. markii dambe nin sheeqaa siiyey waano. waxaa lagu waaniyey ducadan haddaa akhrisataan ilaahay subxaana wa tacaala wax walbo. ducada marka dadka qaarkooda hal tafsiiray ku fasiraan inta badan, laakiin maanta aan fasiraya. ducadaas waxaa waaye laa xawla walaa quwata ilaa billah. dadka badana waxay ku fasiraan laa xawla xeelad ma lihi, walaa quwata awoodna ma lihi ilaa billah. macnaheed waxaa waaye xeeladna ilaahay subxaana wa tacaala tiisaa ah xeeladii fiicneed, awoodna awooddiisa wax ka saraysa ma laha. ilahaasaan hoos galaya. intaas waaye, sax waaye. laakiin tafsiir kala jira oo ah laa xawla lagu fasira oo ah xaala ilaa xaala. manaha xaalad dhib badan ma jirto ilaa ilaahay wuxuu ugu bedelayaa xaalad aan dhib lahayn. xaalad faqri ah ma jirto, ilaahay wuxuu ugu bedelayaa xaalad oo hodantanimo ah. xaalad guur la-aan ma jirto, ilaahay xaalad guur wanaagsan oo barakaysan ugu bedelaya. intaasaa loogu fasiray. waxaa ducadaas akhrista. nabigana dhahay qofkii akhrista u fariista. qisaa jirtay oo kutubta lagu qoro oo waqtiga nabiga ee dhacday calayhi salaatu wasalaam. laakiin hadda qisadan waaqicaan ka sheekeynayna. ninkan waxay ku heshiiyeen isaga xaaskiisa 6 saacadood in 12 saacadood oo habeenkii salaada cishaha kadib in ay kala qaybsadaan oo wardi ay bilaabaan laa xawla walaa quwata illaa billah, laa xawla walaa quwata illaa billah. maamada waxay qaadatay gelinka dambe 6 dambe ay qaadatay, 5 saacadood ugu dambaysa. asagana 5 ugu horeysa u qaatay. waa la fadhinaya, wax kale ma sameynayaan. laa xawla walaa quwata illaa billah, laa xawla walaa quwata illaa billah. culummada waxay dhaheen digriga wuxuu miro dhal ku sameynayaa aayadaha qur-aankana way tilmaaman. yaa ayuha aladiina aamanuu udkuruu llaha kathiiran wasabixuuhu bukratan waasiila. wax badan ilaahay xusa. ilahay wuxuu rabaa wax badan in lagu celceliyo, carabkaaga inuusan ka caajisin. 5 saacadood, 5 hooyaa qaadatay, 5 aabbaha waa isbedelayaan. aabbihii waa nastay, wuu hurdooday, maamadii ayaa bilaabayso. markay sameeyeen maalin 2 maalmood 3 maaqan inta ka soo wareegatay ayaa waxaa dhacday aabbihii riya arkay. waqtiguu hurdaayay riya wuxuu ku arkay cod dhahayo gabadhaadu waa sixran tahay. waana la sixray. sixirkuna wuxuu yaalaa qolkiina meeshaas hoosteedu ku jiraa. ducada aad akhrisaan darteeda ilaahay wuu idin kashafeye. sixirkaas burburiya, guba. waxaa dhacday odayga soo booday sida oday qof bahal qaniino oo kale aada u soo booday isagoo dhahayo waa helna maamida dhahday ma degan tahay? okay ma tahay? ha okay aan ahay. riyaan arkay. waa orday kaale isoo raac u dhahay. meeshii loo tilmaamay aaday oo guriga ka mid ah. jargon hoostiisa waxaa ku jiro warqado la duuduuday uu ka soo saaray oo wax uun ku qoran waa sixir. waa gubeen. markay gubeen
dhammaantood way qubaysteen ilaahay 2 rakaco tukadeen sujuud shukr fiiri maalinta ku xigtay guriga la yimid yaa imaanayo nin guurdoona nin oo jaamici ah oo dhaqan oo akhlaaq u dhammaystiran gabadhuu rabaa kuwa kalena haddana waa iska daba yimaadeen markaasaa ciddii waxay kala gara waayeen cidday u doori lahaayeen nin walba gabadhuu rabaa inuu guursado markaasay dadka u sheegeen qisadan culummadani way u sheegeen qisadan saasay nagu soo gaartay laa xawla walaa quwata ila billaah haddaa ku celceliso ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walbo albaabadiisa kaa xirmay ilahi uu kuu furayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu